بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، درسigoo iska kooban oo lagu tilmaamayo أعياد الكفار وقفات وأحكام ciwaankii laysoo gudbiyey. si guud ahaana ciiddu waa magac sheegaya kulan soo noqnoqonaya, ama mid sannadeed ha noqdo, ama mid bileed ha noqdo, ama mid isbuuciya ha noqde, oo ciidaha qaar baa ah usbuuc kastaba. مثلا ciidda jimcahoo kale waa usbuuc kasta, ciidaha qaarna waa sanadkii. su-aasha isweydiinta le waxa weeyaane dadku hadda iskaga qasantay gaalka maxaa laga qaadan karaa, maxaanse laga qaadanayn. gaalku waa qof bini aadama oo diin kala haystaa. maxaa bannaan in laga qaato, maxaanse bannaanayn in laga qaato. waxaa bannaan wixii manfac ku jiro ee sharciga ku bannaan, aqoonta maadiga ah oo kale iyo wixii la mida. ma bannaana wixii diin iyo dhaqan ku saabsan ee cid gaara ay leedahay in gaalo laga soo qaato. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay ummadda dambe inay fasaadi doonto, oo wuxuu nebigu tilmaamayaa لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. dadka muslimiinta ah ilaahay wuxuu ina faray salaad kasta inaynu ku ducaysanno akhrino faatixada. faatixada ducada ugu weynaa inuu ilaahay weydiisanaynaa waxa weeyaan ihdina الصiraaط الmustaqiim صiraaط aladiina أncamta calayhim غayr الmaqduubi calayhim wala الضaaliin. ilahay waxaynu weydiisanaynaa jidka quman inuu inagu hanuuniyo, jidkii nebiyadii iyo saalixiintii iyo dadkii wanaagsanaa mareen, in rabbi inaga ilaaliyo jidka kuwa lumay iyo kuwa rabbi u cadhaysan yihi. axaadiistuna waxay ku tilmaamaysaa qolada rabbi u cadhoodayna inay yuhuud tahay, qolada luntayna inay nasaaro tahay, iyadoo taasi ay qaacidada caamkaa tahay oo qofka muslimka ahi maalin kasta 5 salaadood oo qura hadduu tukado 7 goor oo ilaahay ka magan gelayo jidka qoladaa inuu maro, ayuu haddana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, kuwii idinka horreeyey waddaday mareen taakataakiya dhudhudhudhub baa u raaci doontaan, oo hadday god masalugalay ama masacagalay galaanna waa ka dabagelaysaan buu nebigu yidhi. waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo ma yuhuudiya nasaara, yacni saxaabadu way qaadan kari waayeen iyagoo ilaahay maalin kasta ka magan gelaya jidkooda, haddana in la yidhahdo jidkooda raaci doontaan. waxay dhahay ilaahay rasuulkiisiiyo ma yuhuudiya nasaara. nebigu wuxuu ku yidhi faman, yaa kale. xadiiskaa saxiixaynka ku yaalla. ee dadku waxay isweydiinayaan krismaska in la xafladeeya ma bannaan tahay, in la tahnadiya ma bannaan tahay, in laga qayb qaataa ma bannaan tahay, in la dhigtaa ma bannaan tahay. intaynan ma bannaanta iyo ma bannaano ka warramin aan isweydiinay muxuu krismasku yahay. krismas, Christ waa mukhallis, nebi ciise uga jeedaa, waa savior. masna oo maqطaca labaada iyana macnaheedu waa miilaad. christmas waa miilaad اlmasiix aw miilaad اlmukhallas, mukhallaskii goortuu dhintay, goortuu dhashay. ciidaha nimanka kristanka ahi ama masiixiyiinta ahi say buugagtooda ku qoraan 140 ciidood bay ka badan yihiin. 140 maalmooda celebrations la sameeyo.
أفريق طبعا باء واوين أفريق طبعا كتضبا وسي واوين تضبا واوين محاكم إذا مركاه لبدان هذه جوردتك كهضلانة كريسماس كه إيستر mid waxay leeyihiin waa maalintuu ciise dhashay midna iyagu siday qabaan waa maalintii la dilay su'aasha isweydiinta leh waxay tahay markaa ma la garanayaa horta maalintuu ciise dhashay ma loo dabaaldegi karaa hadda mayso maalin la garanaya ma tahay bible-ku haba yaraatee birthday-ga waxba kama sheegin ciise qoliya qaarkood baa waxay yidhaahdaan ciise wuxuu dhashay sida luuq ku qoran ciise wuxuu dhashay maalin yacni wakhti ay qoladii adhiga raacday habeenkii markay adhiga soo xareeyeen ay warka maqleen waxaa macruufa bay yidhaahdaan falastiin winterka inaan habeenkii adhiga dabadda lagu haynin winterku waa wakhti dhaxaneed marka wakhtigaasi winter ma noqon kara bay u deliishadaan waa halka sheekha diidaatana uu isna ka deliishado timirtii maryan la yidhi ruux timirtu goormay bislaataa waxa la yaqaanaa inay samarka bislaato xagaaga kulaylka ku bislaataa maadaama timir la yidhi geedkaa timirtaa rutab uu ka soo daadanayo winterka rutab ma jiro haddii la yidhahdo december rutab ma jiro haddaba xagguu ka yimi qoraayadii hore ee qarnigii labaad iyo saddexaad ee wakhtigaa ciise loo nisbaynayo dhalashadiisa ka dambeeyey haba yaraatee wax dhalashada ciise la yidhaahdo kama hadin marka la eego kutubtoodu inta badan dhimashadiisa waxay ku sheegaan iyo crucifixionka ayay ka warantaa laakiin kama warranto dhalashada in badan aliskandariya origin of aliskandariya nin la odhan jiray oo noolaa qarnigii labaad saddexaad ayaa wuxuu ku sheegayay celebrationiska birthday-ga la yidhaahdaa inuu yahay bagan in loo dabaaldego maalinta dhalashadu waa diinta wataniyiinta iyo baaganimada buu leeyay waa nin masiixi ah oo qarnigii labaad ama saddexaad nool wuxuu leeyahay dabaaldegga la sameeyo ee ku saabsiisan birthday wax la yidhaahdo waa baganiska dhaqankoodii buu leeyahy taa macnaheedu waxa weeyaan wakhtigaa meeshaa ninkaasi joogay inaan christmas iyo wax loo dabaaldegiyo waxaasi toona ka jirin sida la og yahay qarnigii labaad ee kiristanadii noolaa may dabaaldegi jirin walidaalika baa nin qoraaya oo clement of alexandria wadaad la yidhahdo wadaadadooda ka midi ayaa wuxuu leeyahay ciise dhalashadiisa dawaa'ifta kooxaha kiristanka ee kala nooca ahi waxay soo brobose gareen waxay soo bandhigeen buu leeyahay maalmo kala gedisan waxyaabaha cajabta lena waxaa ka mid ah maalmaha 25 Disembar marnaba kuma jirtaba waa maalmo kale maalmo ay kiristanku isku haystaan goormuu dhashay clement qoraagiisa waxa uu ku tilmaamaya qola waxay yidhaahdeen sanadkii 28 Augustus bishii bakhal la yidhaahdo 25 oo dhiganta May 20 buu dhashay bay leeyihiin sanadkana 28 bay ka dhigeen Augustus waqtigiisii qola kale waxay yidhaahdeen 28 kaba ma ahayne iyo waqtiga Augustus toone waa 16kii Tiberius waqtiga la yidhaahdo ninka la yidhaahdo waqtigiisii waxaana yidhaahdeen wuxuu ciise dhashay 22kii Abriil qola kale waxay yidhaahdeen wuxuu dhashay 15kii Abriil qola kale waxay yidhaahdeen wuxuu dhashay 20kii Abriil idan waqtiyada casriga ay sheegayeen oo dhan waa Abriil iyo May iyo March wax December iyo meesha tani kuma jiraan waxay isku hayaan nabi ciise ma March buu dhashay mise Abriil buu dhashay mise May buu dhashay taariikha kala gedisan bay tilmaamayaan qarnigii afraad ayay soo bilaabantay oo ay caan noqotay waxaan loo yaqaano 25 Disembar iyo 6 Juun ee 6 January la sheego
kiniisada kristanku qaarna 25-kay u dabaaldegaan orthodox waa catholic iyo wixii raacsiisana ka dambeeya orthodoxkuna waxay u dabaaldegaan 6 January sida daraaddeed kiniisada barigu January 6 bay dabaaldegaan kiniisada galbeedkuna 25-kay dabaaldegaan January 6 waxay kala ku beegan tahay yawm tacmiid maalinta ay aadka weynayeen ay leeyihiin ciise biyaha la geliyo laga soo saaray oo tacmiidka loo sameeyay bay ku beegantahay marka 25-ka December laga soo bilaabo ilaa 6 January 12 maalmoodba qaar baa dabaaldega wada siday ku timi marka haddii aynu leenahay taariikhdii hore lagu bahayo maalintu dhashay qoraayadii hore kuway qoreen waxay sheegayaan inay ama April ahayd ama May ahayd ama March ahayd xagay ka timi hadda December tan iyo January tani laba theory baa jira oo ay qoraan labada theory mid baa aad u caansan ka aadka u caansan wuxuu sheegayaa 25-ka December diinlaawayaashii Scandinavian-ka ku noolaan jiray waxay u dabaaldegi jireen wax yuulka la yiraahdo Jarmalka iyo kuwaasina waxay u dabaaldegi jireen Saturnalia wax la yiraahdo ilaaha cadceedda iyo ilaaha beeraha baa loo dabaaldegi jiray qolana waa ilaaha beerta god of agriculture qolana waa ilaaha cadceedda ama se cadceedda loo dabaaldegayay inay soo noqoto waa waqtigii 25 December waa waqtigii qaybahaasi madowga galaan ee maalintu yaraatay habeenku bato marka waxa la weydiisanayaa inuu soo noqoto cadceeddaas kaasi waa theory-ga ugu badan waxay leeyihiin haddaa maalin gaaleed bay ahayde wadaadadii hore kristankana waaba kuwa maagayay celebrationska birthday-ga oo dhan maxay kuwan dambe u aqbaleen waxay dhahdeen waxa loo aqbalay maalmihii markay kristanka qaateen bay dhahdeen war maalmahoodii ay dabaaldegi jireen aan maalinta bedeluun oo nidhaahna waa maalintii ciise dhashay oo shaqo kristan aan samayno halkii ay shaqada sanamka la caabudo ama cadceedda la caabudo ay wadeen aan ku bedela cibaadaad masiixiya bay yidhaahdeen qolada kalena waxay leeyihiin maye bisha May ama March ama maalmahan aynu sheegaynaa maalan 25-ka March wuxuu ku beegan yahay bay leeyihiin maalintii yawm tabshiirka maalinta yidhaahdaan yawm ciidul bishaara maalintii Jibriil uu Maryam ugu bushaareeyay in ilmo la siinayo waxay yidhaahdaan maalintaa ilaa iyo December marka la xisaabiyo waxa u dhaxaysa 9 bilood marka wuxuu maanu qiimaynay maalintii Jibriil uu yimi baa inta ahayd hadduu birthday-gi hadduu si caadi ah u dhashay inuu December dhalan karo theory-ga qolada theology-ga sheega laakiin inta badan ka caanka ma aha 6dan ay isku hayaan 25 January ma 5 December ba mise 6 January na waxay u dhaxaysaa maalmaha ay ku muransan yihiin oo ah 6 April buu dhashay mise 25 March buu dhashay isla markaana crucifixion-ka iyo ciid al-bishaaru annunciation-ku waa isku waqti ayay iyagu qabaan maalintii loo bushaareeyay isla maalintaasaa la dilay isla maalintaasuu urgalay dabeetana waqtiga ka muu dhashay soo duduub waxaan leenahay ciise goor uu dhashay cidi garan mayso oo haddaan goor uu dhashayba cidi garanayn maxaa loo dabaaldegaya waxyaabaha cajabta ah waxaa ka mid ah ee ciise ku saabsan qarnigii sagaalaad khilaal alqarni التاسع عشر aan idhaahno waxaa bilaabmay brotestanka qaybo ka mid oo leh waa bidco kaatoligu samaystay sidaa daraaddeed iyo in maalintaa la dabaaldegay kiniisadda kaatoliga baa radiday oo sii tiro badisay dagaaladii ingiriiska dhex marayay wakhtigii ay jireen waxaa la mamnuucay in la dabaaldego maalintaas Scotland 1640kii sidii loo mamnuucay
1958 kii dhawaabaa la soo celiyey in December 25 dib loo dabaaldegi karo waddanka Maraykan mustawdanaadka Protestantiska radicalka haysan jireen 1659 iyo 1681 sida Boston iyo wixii la mid ah mamnuuc bay ahayd in 25 December la dabaaldego waxaanay u arkayeen inay tahay caado Ingiriis oo foolxun taariikhda markaynu dib ugu noqonno markaas masiixiyiintii noolaa waqtiyadaasi waxay u arkayeen inay tahay caada wathaniya oo aanay bannaanayn in la dabaaldego waxaa cajiiba markaa maharajaan katholigu ay sameeyaane waxa ku saabsan oo dhan qolyaha kale waxay u qabaan inaanay bannaanayn dhan kale markaan ka eegno waxyaabaha la sameeyo oo ah maalan in wax la bixiyo waxbixintani xaggay ka timi waxbixintani waxay ka timi imbaraatoriyadii romanskii ka horraysay tan December maadaama ay cibaadaadkooda samayn jireen wakhtigaasay wax bixin jireen kiniisadda katholigii waageedii hore mamnuuc bay ka dhigteen wakhtigaas sadaqaadka la bixiyo 25 December iyo waxa kale wax la bixiyo bari dambe alquruun alwasطaya ayay ogolaadeen intii hore waxay lahayn waa caado wathaniya ayaan la bixinin waxaa kaloo jira wadaad Christian Armenian oo Nicola la odhan jiray Nicola ayaa berigii dambe quruun alwasطa middle age markii la joogay ayuu habeenkii sadaqa intuu la gudo ayuu dadka siin jiray mar dambe oo qarnigii 19aad baa nin shaacir oo Maraykani gabiyey dabeetana isagaa gabayga ku sameeyey ninkan maryaa cascasita ee garhka cad leh ee maryaa cadcad leh ee bahasha yar ee ghazaaladu maxaa la yidhaahdaa deeradu ay jiidaysa ee carruurta intuu wax u qaybiya habeenkii meesha ka soo ridaa gabayaa Maraykan baa waa damba samaystay idan caado jirta maaha geedkan kristanka ee la taago waa geedkii wathaniyiinta Jarmalku ay taagi jireen idan caadaadka meesha lagu samaynayo oo dhami waa caado kuwii wathaniyiinta ee diinlaawayaashii hore ay samayn jireen haddaba qoladii kristanka ahayd waxay leeyihiin hore wax bannaan maaha hadduu kristanku halkaa ka taagan yahay innagu markaa inaynu dabaaldegnaa oo krismasnimo u dabaaldegnaa ma bannaanta su-aashu waa taas inaynu innagoo muslimi dabaaldegno oo u dabaaldegno ciid wathaniya oo wadaadadii kristanka qaybo badanoo ka mida ay leeyihin waa ciid wathaniye ciid xataa ciise dhashay maaha oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuura waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan maxaa loo dabaaldegayaa markaa ma waxaad dabaaldegaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidco agtooda ka ah haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay iyadoo ilaahay leeyahy waqaaluu ittakhada araxmaanu walada laqad ji'tum shay-an idda takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu hadda an dacuu lilraxmaani walada wamaa yanbagii lilraxmaani an yattakhida walada xadiidka saxiixaana uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi aadanuhu ina aadan wuu icaayaa waanu ibeeniyaa wuu icaayaayo wuxuu leeyahay inan buu dhalay anigoo ah buu ilaahay leeyahay allahu laxad الsamad waxna dhalin layna dhalin waa ibeeniyaa oo wuxuu leeyahay soo celin maayo iyadoo aan abuurkii hore abuurka dambe igaga adkay haddaba ayuha alxiba sharci ahaan markaan eegno ciidda waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid yihiin cibaadaadkay ku jirtaa sida manaasigta kale qiblada salaada soonka iyo wixii la mida ilaahayna wuxuu qur-aanku leeyahy likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuun cid walba wakhti ayaanu u samaynay ay cibaadadooda la yimaadaan likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون waxaana ilaahay qur-aanka ku leeyay والذين لا يشهدون الزور kuwa aan
xaadiraynin zuurka mufasiriin badan baa waxay ku fasireen inay tahay ciidaha mushrikiinta laa yashhaduuna bizuur haddii la yidhaha waa kuwaan markhaati beenaalaha sheegaynin laakiin maadaama aan ba' lagu gudbin bay leeyihin waxay tilmaamaysaa inay tahay kuwa aan xaadirayna ka qayb gelaynin ciid gaaleed ah ee nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa markuu yimi wuxuu arkay carabtii oo ciidaysa waa maxay bay yidhi waxay idhaahdeen waa ciid aanu jaahiliyadeedii ciidi jirnay ansaartii wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idinku beddelay mid idinka khayr badan ciid aladxaa iyo ciid alfitri baa laydinku beddelay caaisha waxay leedahay guriga ayuu soo galay abubakar ayaa noo soo galay iyadoo laba jaariyadood heesayaan ciiddii ciidala muslimiinta walaysataa bimuqaniyatayn bay leedahay laba heesana may ahayn horta erayga hees markaa maqashaan inta badan dadka waxaa ku soo dhacaya muusigii iyo waxaan la tumayo iyo boodboodka waxaan heestaa lama yidhaahdo af soomaaliya hees haddaad maqasho waxaa la yidhaha hees tii xoolaa lagu raaci jiray tii ceelka lagaga waraabin jiray tii haanta lagu luli jiray tii ilmaha yar loogu heesi jiray hees af soomaaliga kuma jirto wax muusig la yidhaahda muusigga gaalkuu la socday bigilkii ugu horreeye la tumo hindidii la socotay ingiriiskaa wadatay cuudkii ugu horreeye la garaacana kuwii cadan ka yimi baa la yimi dhaqan soomaaliyeed ma aha wax la tumaa haddii laga maarmi waayo qolaa durbaan haysatay haddii laga maarmi waayo laakiin kuma jiro dhaqanka soomaalida waxaan la yidhaahdo idan haddaad hees maqasho midhaha la tirinayaa laga warramaya af soomaaliga midho wasni leh oo noocaasaa laga warramaya caaisha waxay leedahay markaa labada hablood manay ahayn kuwa heesa abubakar baa wuxuu yidhi abimazmuurin sida riwaayadda muslim tilmaamayso riwaayadda bukhaarina mazaamiir bay sheegaysaa abimazmuuri الshayطaani fii beyti rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam ma mizmaar shayطaan baa gurigii nebi maxamed jooga wuxuu nebigu ku yidhi markaa maalin ciideedna waa hediya ababakar ina likulli qowmin ciida wahada ciiduna idan muslimiintu laba maalmood oo ay farxaan oo hees qaataan oo ba u bannaan waa labada ciidood ama waxaa ka soo hadha ina likulli qowmin ciida wahada ciiduna buu nebigu yidhi cid waliba ciid bay leedahay maalin ay faraxdo boodbooddo bay leedahay annaga ciidda iyadu waa tan buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam walikullin jacalnaa minkum shircatan waminhaaja nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maadaama uu yidhi wahada ciiduna waxa ay sheegaysaa ta kale inaanay ciid u ahayn muslimiinta xadiidkii hore aan tilmaamaynayna wuxuu nebigu tilmaamaya in allaha qad abdalakum bihima khayra minhuma waar ciidaha dadka kale kuwa ka khayr badan ayaa ilaahay idinku beddelay in laga qayb gala daaye in baa nebiga u yimi wuxuu yidhi waxaan ku nadray buwaana meesha la yidhaahdo inaan geel ku qalo markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi hal fiiha wathanun min awthaani aljaahiliya yucbad sanam sanamadii jaahiliyadoo la caabudi jiray miyaa ku yaallay qaaluu laa maya bay yidhaahdeen fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim buu nebigu yidhi haddaama waxay ahayd meelay ku ciidaan markaasaa la yidhi laa maya haddaanay labadaa midna ahayn buu nebigu yidhi nadrigaaga oofi su-aasha isweydiinta le waxay tahy haddii watan jaahiliya uu meesha ku oli jiray lagu ciidi maayo krismasku watan jaahiliyuu ahaan jiray waa mar labaad hadday ciid jaahiliyeed ahayd la samayn maayo krismaskuna ciid jaahiliyeed buu ahaa ciid dadka aan ilaahay rumaysnayna rumaysan awhaanta ciiddoodii bay ahayd kristanku way kaga daydeenunoo way la qaateen idan waa bidca ay kristankuna soo kordhiyeen fi shariicana kuma bannaana saa daraaddeed culammada muslimiinta waxay ku tilmaamayaan inaanay marnaba u bannaanayn dadka muslimiinta ah ciidaha diimaha kale inay ka qayb galaan
كريسماسكو إما عيد كريستان إنه نقضه هدو نقوم ويانا عيد وثني بنقضه كوان إلهي عابدين وثنيين وإسكندنافيين كي جرمل كيو آلي هذا كلا عابدو شري عيدو دي أما عيدي كوي كريستان كان نقضي النصارى لبدا عيدود مدنا ما بنانا دينهان إنه كغيب الله عيد وثنينا ما بنانا عيد كريستنا ما بنانا سادرات النبي وحولي عليه الصلاة والسلام حديث كصحيحين كي الله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أنك أحكوي دنبيي حق وقتك مركا لقايقو هرية مالتا قيامة وجنة وهرقلي حق منزلة مركا لقايقو بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فسيا شيخ النبي يقول إياك كتابك هرطايا لسيي أنك نكذبنا لسيي فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه وجمعة ابو النبي يقول عيدو دي لسيا يسكو خلافين قرن وايه سبت إياه أحدثونا ما يهينه جمع بعيد ابو النبي يقول إلهي بانا نوهنوني فالناس لنا فيه تبعا ضدكو أنك أي خدم يتبع نوغيون وضب الصعدان من نبولي اليهود غدا والنصارى بعد غد إذن إنه يتبع النغنا ما بنانا جمعة عيد نوعه سبت نوماها عيد الأضحى عيد الفطر با عيد نوعه قوة كلا عيد نوماها سيدا وقيد أيها الأحبة قال استعلي سنتني قال قد يشضتني دينتكم بنانا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وحان النبي تلمامي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم نكدد سوء كيسية أي سوء كيسية واحد دينتا أنكم بنانين waxa iyagu caan ku yihiin Christmas iyaga bale Christ baa way u bixinayaan saad uga qayb gashaa wadiin sadin kale ciideedu ciida wa cibaada sad cibaada diin kale u samaysta sida ugeeda ayuha la xibba nabigu wuxuu leeyahay khalifu al-mushrikiin war mushrikiinta khilaafa وعقيدة يدينته يا شريعة خلافة أعياد وحي كم تهي وحل اسكو خلاف سيء ونبينا لي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور وروحا إذن كدقيا بدعة عصبية مادة فإن شر الأمور محدثاتها بدعة مادة وحا وشرك بضان لهم محدث وحاهي بدعة كمدة وكل محدثة بدعة كستانة محدث شيء كستول سود الرينا وبدعه هدي بدعة مسلم كسود الري حديث وكدقيو بدعة كريستك وكان كورم إلى 25 ديسمبر وبدعة مسيحية وأوثان تيكسون نقليانا وابتداع والله ما ده بدعة مسلم بان لغوه قلينا ما بدعة كريستان بان مركا لغوه قلانا يا حاد غريب وأمرك dadka muslimiinta ah isaga darsameen maxaa xalaala iyo maxaa xaraana waxa la mid ah ciidaha kan new year baa la mid ah sanadka cusub sanadkan cusub ee January la sheegayo ugu horeyn Julius waqtigiisii baa loo dabaaldegay waqtiga ugu horeeya waa 45 BC ee loo dabaaldego waqtiyadii dhexe looma dabaaldegi jirin waqti dambe dib loo soo celiyay kalendarkani waa kalendar Roman ah kalendar Roman ah Romanisku waa wathaniyiintii hore Juliusna waa boqorkoodii waa ninka bishan July la yiraahdo isku magacaabay boqorkii isaga ka dambeeyay Augustus bisha August la yiraahdo isku magacaabay bilaha kala qayb ka midina waa ilaahiye magacyadood March waa ilaah dagaalka ilaahul harb bay March yiraahdaan
وإلهي مقعيدون قيبها الدنبنا واترو سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر سب وبشي تضباط أكت وبشي سديدات نوف وبشي سقالات دس وإننا ندس مليا وحاشقنا وبشي طبنات وهذا محل بيه طبنية كردقة محي سويد ويداريي بغردن باي سويد ويداريي شو اللي يثبت تدبي لحدا ما البط حقه هركا قدري وجانوري فبراير كو صدر صدي كدب غريغوري بوبكي لو odhan jiray ايام جوليس وقتيسي بش سنه waxa la xisaabin jiray 365 iyo 0.24 waxa la ogaaday in xisaabtaas ay qaldantay qaladkaasi wuxuu keenayaa sanadkiiba dhowr minute 12 minute inay soo baxaan oo equinoxiska marka la xisaabiyo solar systemka inuu qaldan yahay saadaradeed ay waxay yiraahdeen hadda waxay xisaabiyaan ay yahay 365 iyo 0.25 kun shan boqol iyo 280 markii la marayay ayuun baaba 10 maalmood hore loo soo guuray bishu iyadoo afarun baa la yiri may saaka waa 14 Oktoobar khamiis oo bishu afar tahay jimcihi ku xigay ayuuma la yiri waa khamiistani waxa weeyaan waa khamiistii 14aad bay ahayd maalinta ku xigtaana 15 bay noqonaysaa ingiriiska diiday 200 sanadood in ku dhadhow buu diidanaa ingiriisku 1752 meelahaasi ayuu isna iska aqbalay marka isaga waqtigiiba uu ku sii kordhayo 12 maalmood buu isagu guuray meelahaasi ala kulli xaal waxa ay gaala walaaqday hore iyo dib u guurtay sanamadeedii waxeeda u baxsatay maxaad ula dabaaldegaysaa adiga kaaga xidhan maxaa ciid ka dhigay habay yaraatee ciidahaasi wax ay shariicada islaamiga meel kaga leeyihiin ma jiro su'aasha isweydiinta le markaa waxay tahay waxaan oo dhan fikradda ka dambaysa ilaahay wuxuu quraanka inagu leeyahay al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina wardiinta wardiin dhamaystiray baa ilaahayna leeyahay muslimiinta dhibtana qabsatay waxa weeyaan multicultural society markay la noolaadeen bulsho noocyo tiro badan isugu jirto diimo badan haysta may kala garanin waxay qaadan lahaayeen iyo waxay ka tagi lahaayeen ee wax walba way iska qaateen waxyaabo dadka aynu la wadaagi karnaa jira say culimada qaar badan ay qabaan مثلا ninka gaalka ah haddii ilmo u dhasho waa la tahniyadeyn karaa dhib maaha waqti aan ahayn krismasyadii waxa kan waa la siin karaa maxaa la yidhaahdaa hadiyad waa hadaaya waa laga qaadan karaa ama tahniyada ku saabsiisan ciidaha ilaahaga inuu dhashaan kuugu tahniyadeynaya dee ma bannaana Christmas Day inaad ku tahniyadaysaa ma bannaana ma bannaana wax macsiyo uu ku jira inaad ku tahniyadayso idan tahniyaadka la samaynayo ayaamaha wathaniga ama ayaamaha diimaha kale ee haystaan Christian Yahuud waxay doontaa ha ahaato ma bannaana لا هدية بحنت يدان بنانين ولا تهنية يدان بنانين سا جماهير العلماء وبدنيهين ولا كدقن كيدان بنانين دقن مدى يديمه وينك للصعنا هذا وين دقن قالت كم نقولين قف مسلماتاي مميز بني آدم كويس كميسته لكن وين حر أهاتا ودين هذا أضحر وأهاتا waxaan ku soo koobayaa waqtigu uu kooban yahay waa inaynu kala garannaa maxaan qaadan karnaa oo dadka kale ka qaadan karnaa iyo maxaynaan ka qaadan karin dadku waxa anfaca la imika kama qaato maalan sciencisku anfac buu leeyahay way yaryiin dadka inta ka barata laakiin inta dhafoorada xiirata ama surwaalka daldalooshata ama feedhaha qaawisata ama buruuko soo xidhata ama kabadhaadhe inta xumaha kaga daya waa xumuhu fududiyay saa loo qaataa xumuhu waxba waqti badan uma baahna caawaad intaba samayn karaysa
أما وحا قيمها له waxay u baahan yihiin waqti iyo juhdi iyo dhidid idan wixii la yiri ka qaatana kama qaadano wixii la yiri ha ka qaadanina waynu ka qaadanaa waa aqal foorarka muslimiinta ku dhacay wixii la yiri soo qaatana waa diideen wixii la yiri ha ka qaadanina way ka qaadanayaan idan ayuha alhibba waxaan ku soo koobayaa maalmahan ama wathaniinimaha ku salaysnaadaan ama diimo kale ku salaysnaadaan maalmo muslim iyo diin islaam ku salaysan ma sida awgeed in laga qayb galo sinaba uma banaana sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam